الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم منها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. إن الله سبحانه وتعالى أوقفك وافجية مارتي wanaaga oo dhanna wuxuu ku jiriyaa in qofka oo islaamka oo qaato oo ku dhaqmo ka dhigto manhaj ama nidaam nololeed oo ku soconayo inuu ka dhigto islaamka. marka sacaadadu waxay u kala qaybsantaa laba nooc oo midna waa midda adduunyada, midna waa midda aakhiro. labadoodana way iska milayaan. nolosha sacaadada ama wanaaga, nolosha wanaagsan oo adduunyada waxay ka koobnaanaysaa laba nooc ayada lafteeda, oo waxay noqonaysaa mid oo badani ah ama maadi ah oo la taabo kara. waxayna ka kooban tahay middaas oo maadiga ah la arkaayo oo qof kasta oo bani aadama uu dareemi kara. waxay ka kooban tahay in qofku nabadgelyo ku noolaado iyo caafimaad inuu ku noolaado iyo inuu haysto risqigiisa oo uu ku noolaan lahay inuu haysto. hadalkaas aan sheegay oo nolosha wanaagsan oo maadiga ah oo muslim iyo gaalba shamlinayso oon dhahnay waxaa waye al-amnu waasixa waarisqi, nabadgelyo iyo caafimaad iyo inuu qofku risqigiisa uuna ka welwelin. waxaa tusinaayo xadiis uu soo saaray Tirmidi iyo Ibn Maajah, wariyana saxaabiga la yiraahdo Ubaydullaahi ama Cabdullaahi. waa shakiga ku jira inuu Ubaydullaahi yahay inuu Cabdullaahi yahay. marka labadood baan soo naqliyay sababtoo aan taxqiijiyo waqti uma helin. marka Ubaydullaahi ibn Muhsan ama Cabdullaahi ibn Muhsan xadiis uu wariyay radiyallahu ta'ala anhu wuxuu yiraahday qaala rasuulullaahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam man asbaha minkum aaminan fi sirbihi mu'aafan fi jasadihi عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا وفي رواية بحذافيرها. marka xadiidkaas wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam qofkii ahaada ama waa bariisto oo adinka idin ka mid ah asigoo nabad qaba aaminan fii sirbi, ahalkiisa iyo naftiisa cabsi ma ku jirto, nabad ayuu ku waa bariistay, mucaafan fii jasadihi, jirkiisana waa nabad oo caafimaad qaba.